kulan ciyaareed lagu maamusay magaca degmada Buur-Xakabe ee gobolka Baay ayaa lagu qabtay Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya. dhalinyaro ku weyn magaca degmada Buur-Xakabe ayaa kulankan soo qaban qaabiyeen waxayna ciyaar wanaag ku soo bandhigeen mid ka mid ah garoomada kubadda cagta Muqdisho. ciyaarta oo socotay muddo hal saac ayaa la isku mari waayay. kooxahan oo labadoodaba wateen magaca degmada Buur-Xakabe ayaa sidoo kale waxay muujiyeen qiimaha ay leedahay magaca degmo qadiimiga ay ku soo jeedaan Buur-Xakabe. dadkii u soo daawasho tageen ciyaarta oo isugu jireen wiilal iyo gabdho ayaa halkaasi kaga hadleen dareenkooda. marka hore wadaan barin diray maalintii inta keergantii mise kulkii oo xifaatanka ay dhaxmaray lama guubo lama walaale ha bandhiga ciyaar midnimo iyo si xoogaasa walaaltinimada iskaashiga yaha bandhigan kooxda guuleysna Marila xaan ku guuleysna Marila geega mayba ka sugnaa garoonka macquul oo kilometer 4 oo toosanay waa galabtoon ciyaar fayla ka bandhigeen lama kooxood oo ka tirsan dhalinyarada degmada Buur-Xakabe oo group A iyo group B mayba bandhigeen ciyaar wanaagsan oo aad soo jiisan leh dhalinyarada inta badan oo ku nool degmada magaalada Muqdisho ku nool dhamay waa gobolka Banaadir timis sideed gobol diyan soo qoyan fiirsadaan ma sha Allah ciyaar fayl fayl bandhigeen إذا كفرس الجيل كلكم لقد عرفت بدأ مات نجيه مركوت الله سبحانه وتعالى كل ما تكجود دقي يقدر قابل كوين كديانسي غيرت دمر Buur-Xakabe كجيدان أنت قول لعين استعجل بالشسود دي لعين كلكم أنت مركين كبريتي أو غيرت دمر Buur-Xakabe كجيد كلهم سبورت استعجل استعمل سود يوم إذا كفرس لنا مربوه قضية لكن وكل ما يسوي بقول له الحمد لله جيد وننغتي وعلى كلمة لنا يوم بريتو يدردنبو كده بيلاقي سنة بيقول سنة عدونته لما شيء بيسمعوا كلها كده بيقول جيد وننغتي الحمد لله إذا كفر عسلنا لكن هدون كوين يقولون كوين ما جوا استعجلكم كنتم أنا يرى أو دمود Buur-Xakabe كجيدا عشان ولدوا ناس عرفنا جيد أنتم كل ما سبورتس كل مي رنتي سبورتس كم يبغى كتير جميل نبدأ ساسنا مدرعي تسالك إذا كفر عسلنا رنتي عبد الفتاح سالدو iyo Maxamuud Saliim oo ah dhalinyaradii juhdiga ku bixiyeen isku imaatinka dhalinyaradan ayaa iyaga ka hadleen dareenkooda iyo muhiimadda ay leedahay in la qabto kulamada noocyadan ah. salaam dhalinyarada ugu horeyn dhalinyarada Buur-Xakabe salaan kadib aad ma had ilaahay ka soo dhalinyarada is shaqeyn inta kulku sinabadeenka dhamaad sinabadeen loo soo tahay kala geeyay waa bari dunuunina waa cad iyo waaye damashida diliska dhawr kooleejada waan idin faraxsan maadaama aan loo badi hadawaba kunoo ana dhalinyarada reer degmada Buur-Xakabe geeka mayba ka bandhignay ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ciyaarta soo ka saabsanaaytay dhalinyarada reer Buur-Xakabe qaasatan jaamacado ikbaayaan oo qeybo waa bari iyo xamarweyn iyo kooyan oo uu ku kooni meel raas degmada oo dharkeena degmada ma bandhignay ciyaar aad meel raas ma sha Allah kuna saaxiibtinimo kulankaasna ma ka dhamaaday guul insha Allah hano kabtanka iyo Abdi Fataax Ibrahim Saldo يومي بعجب جباين أنت تقولوا ما يدار حياة لس دحمر واي إلا هرب ما يدرتي ما يدار رجورة أصلا تقولي سني إن شاء الله إذا ما ستين سن ورياشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبورتس كأو مهم استحقالك بوليشة أيها هذا نسي جارة كل ماذا نوعيا waxay muhiim u yihiin dhalinyarada ku soo jeedaan degmada Buur-Xakabe ee kula sugan magaalooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliya. Maxamed Nuur Faransa, Ralaadi News, Muqdisho.